بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وعشر كأني لبعض بينو قلنا هدي اللينمو عتبك تريجنومتريجا عشر كورة هدينو وحير دبقوا نقول وحنا صار دقني تريجنومتريجا دنعيدي سوينا صوبرناي إيوه waxyaalaha la yiraahdo saamiyada asaasiga trigonometriga oo ay kamid ahaayeen tangent sin iyo cosine hadii aan maanta casharkeena labaad baynoo socon doona aynu ku sii daba xiri doonaa casharkeena hore saamiyada asaasiga ee trigonometriga oo sin hore u soo dhiganay waa saamiyada trigonometriga asaasiga tangent sin iyo cosine iyo siyaabaha lagu helo baynu soo dhiganay sidoo kale mas'uuliyad la xiriira shalay waxaanu ka hadlaynay xaglaha aynu soo dhiganay maanta waxaan leena ka raba dhamaadka casharkan insha Allah markuu dhamaado sidii casharkii hore kale waxa la rabaa ardaygu inuu awoodo inuu xaliyo mas'uuliyad la xiriira dhinacyada saddex xaglada quman awal waxaynu ahay xaglaha saddex xaglada quman baynu ka hadlaynay laakiin maanta waa dhinacyada saddex xaglada quman iyada xagasha leena siinayo hadii la yiraahdo dib hadaa u eegtid ama dib aynu ugu noqono saddex maxaynu ku helaynay sin salaan xagasha ba laga hadlayo kale saynka aynu ka hadlayno waxaan ku helaynaa horjeedaha horjeedu hadda waa xagashan oo kale xagashatan b aynu leenahay halkaas oo kale wakan ka soo horjeeda waa horjeede si fiican u qoro waa horjeede kana muxuu noqonayaa waa daris dhinacaas xagasha kuma ka soo horjeeda xagasha 90 degree aan waxaanu bixinay shakaal oo isla sigayo kale aynu dib u eegayno saynu marka u helno hadhowda marka aan raadinayno dhinacyada leena ka rabo talaabada koowaad waa inaynu doorano macni saddexdii tangent cos midka ku haboon haba dhinacaynu raadinayno sidoo kale inaynu dhisno equation-ka ama marka aan dhisno waxa leeyahay select ku haboon inoo noqonayo iyo inaynu raadino dhinaca ina ka maqan su'aalaha koowaad aynu maanta haysanno waxa leeyahay saddex xagal kale dhinacyada ABC waa kan waa saddex xagalka ABC waa saddex xagalka magaciisa aynu haysano maanta inoo yaala raadi dhinaca AP marka saddex xagalkeenu inoo yahay APC maanta oo inuu haysano waxa leena siiyay inay kuwan waa magacyadoodii nambarada leena siiyay inuu ku qorano halka waxaan haysanaa waa 2 sentimitir xagashina waxa leena siiyay maanta 30 degree waxa kor inoo ku qoran leena yiri waxa leeno dir a b waxaan ogaataa sin 30 degree inuu inoo leekan karo half macni sin 30 degree hadaa calculator-ka haystid oo ka eegtid waxa ku soo baxaya waa half ama hal loo qaybiyo 2 iyo half waa isku mid waxaad ogaanaysaa halkan waxaynu haysanaa dhinaca leeno dir marka waa dhinaca calaamad su'aalku inoo saaran tahay wuxuu inoo noqonayaa dhinaca xagash haduu mar xagasha leena siiyay dhinaca ka soo horjeeda mar haduu ka soo horjeedo wuxuu inoo noqonayaa horjeeda marka horjeeda leena diro weeye horjeeda baynu raadinaynaa weeye macnaheedu dhinacaas ila xagashu ka soo horjeeday wuxuu inoo noqonayaa horjeeda sababteenu nirnaa xagasha aynu haysano dhinaca ka soo horjeeda waa horjeeda aynu haba ka hadlayno dhinaca shaqaalkaana waxa leena siiyay 2 sentimitir inaynu trigonometriga adeegsanayna inuu inoo yahay sin waxaan ku garanaynaa sin qiimaheeda baa leena siiyay 30 ama haddaynu si kale u eegno shaqaalkana waxaan haysanaa 2 sentimitir xagalna waa leena siiyay saadaraadna waxa leenahay sin ama sin 30 oo haba hadda leena siiyay xagasha 30 hadda inoo ah 30 degree wixii inoo leekaanaya sinka waxaan ku heli jirnay waxa leeyahay horjeeda oo loo qaybiyay shakaal horjeeda loo qaybiyay shakaal horjeedaha loo qaybiyay shakaalka hadda xagasha weyn haysanaa maanta awal xagasha casharkeen hore xagasha la inoo diri jiray hadda waxaan leenahay sin 30 degree wuxuu inoo leeyahay horjeedihi waa la inoo diray hadaa rabti ha u qaado oo qoraalka dheer iska daa oo loo qaybiyay laakiin shakaalka waxaan haysanaa 2 sentimitir shakaalka waxaan haysanaa 2 sentimitir markaynu saa u dhisnay talaabadeena koowaad waxaynu helnay inaynu saamiga ku haboon aynu doorano wuxuu noo noqday sin
tii labaad waxaynu dhisnay isleegtii oo hataa isleegtii kan koowaad waxaynu leenahay inuu halkan intan waxa hooseeyo oo hal waxa ku dhufanaysaa horjeeda sin 30 labana waxa ku dhufanaysaa waxa la yiraahdo sin 30 waxaynu leekaanaya oo lagu dhuftay 2 sentimitir hadda kor fiirisid macnaheedu sin 30 waxaynu u qaadan karnaa half oo basic sin 30 hadda ku ka fiirisid oo tiraadina shift sin 30 hadda dhan wuxuu soo baxaya half sida daraadeed horjeeduhu wuxuu inoo leekaanayaa oo aynu haysanaynaa sin 30 waxaynu ku bedelaynaa half oo lagu dhuftay labadan oo inoo ahaa shakaalkii meesha inoo yaalay 2 sentimitir horjeeduhu wuxuu inoo leeyahay sida daraadeed hal 2 ku dhufo waa 2 sentimitir ilaa koreeyaha labada koreeyo isku dhif oo loo qaybiyay 2 sida daraadeed horjeedu wuxuu inoo leekaanayaa 2 qayb waa hal 2 qayb waa hal 2 u qaybide waa hal sida daraadeed horjeedu waxay inoo soo baxaya 1 sentimitir ama 1 sentimitir horjeedu wuxuu inoo noqday 1 sentimitir hal mar ku celi sin waxaan leenahay sin wuxuu leenahay horjeedo loo qabi shakaal hadda ila dhinac ma raadinayna awal waxaan leeynoo diri jiray wax la yiraahdo xagal maanta waxaan raadinaynaa dhinac horjeedahaas maanta leeynoo diray sin baynu adeegsanaa ratio sin horjeedo loo qabi shakaal sin 30 wuxuu noo leeyahay hal sin 30 wuxuu noo leeyahay horjeedo oo loo qabi shakaal horjeedii waa leeynoo diray shakaalkina waxa leena siiyay 2 sentimitir waxayna hal baynu yeelay hal waxa ku dhufataa horjeedaha labadan isku weedaar isugu dhufo labadan waxa ku dhufataa soddonka horjeedaha lagu dhufto horjeedii sin 30 oo lagu dhuftay 2 sin 30 waxa ku bedelan ka qiimahaas oo ah half laakiin ku bedel half ka ku sii dhufo 2 hal 2 ku dhufo waa 2 halkan hooseeya ah 2 u qayb ka dan waxayna soo baxay 1 sentimitir aan sii socono tusaalaheena inuu ku xiga inuu galno saddex xagal hoose ee QPRS saddex xagal kaliya isba dalaya inuu saddex xagalkana waxa la siiyay QPRS PQRS PQR kaasal xagashiisana waxa la siiyay 45 degree waxa la loo diray waxa la yiri markaa taalo soco maskaxda ku haysid tan 45 waxay ku leegtahay hal taana meesha ku qoro halka waxa la siiyay 5 sentimitir halkana waxa la siiyay kana waa la inoo diray dhinacaasna waa dhinaca la inoo diray marka waxa la raadi dhinaca QR waa dhinacan marka waxaynu leenahay saamiyadii aynu haysanay tan cos midka inuu ku habboon kaymo noqonaya mar haddaan shakaal haysan meesha shakaal ku weyn tan iyo waxa la yiraahdaa sin iyo cosine midna kuma habboonayo iyaga shakaalka ku jir ilaa lagu diro ma dhinacan lagu siiyo marka kaynu ku habboon wuxuu inoo noqonayaa tan 45 ama tan 45 degree wixii inoo leekaanaya waxaynu ku heli jirnay waxa la yiraahdo horjeede loo qaybiyay daris horjeedii hadda waxaynu haysanaa 45 inoo qaad waxaynu haysanaa 5 sentimitir oo loo qaybiyay dariskana waxaynu haysanaa waa midka la inoo diray hada aynu raadinayno inoo sii soco waxaan leenahay halka waxa inoo yaalo hal hooseeya hadana waxaan ku dhufaynaa isku weedaar halka waxaan leenahay tan hada hormari si ku filaato waxay ku leegtahay tan 45 wixii noo leeyahay halkaana shanta ku dhufo waa 5 sentimitir saaxa hooshid kaliya hooshid dhinac walba waxay saa qayminaysaa halkan waxa u qayminaysaa tan 45 halkan waxa u qayminaysaa tan 45 waxa isla baxaya tan 45 iyo tan 45 waxay noo leekaanaysaa 5 sentimitir oo loo qaybiyay tan
afartan iyo shan haddaad dib u noqotid taan afartan iyo shan waxay noo leekaa hal sidaa daraaddeed intaa waxaa ku bedelan kartaa xaa waxay noo leekaanaysaa 5 sentimitir oo loo qaybiyey taan 45 oo dhan waxaa ku bedelan kartaa waxay noo leeyahay sidayna hore u sheegnay waa hal halka hal baa gelinaya sidaa daraaddeed 5 loo qaybiyey hal waa 5 sentimitir sidaa daraaddeed dhinacaas wuxuu noo soo baxay 5 sentimitir waxaan adeegsanay taan waxay radaa ku noqotaan 45 wuxuu noo horjeeda loo qaybiyey daris horey baan u soo baranay hadda taan 45 waynu haysanaa 45 ilaa dhinac baa loo raadinayaa horjeedii waxaynu haysanaa 5 sentimitir dariskana waxaynu haysanaa oo mid kale inoo diray aynu raadinayno waxaan isku wadaar isku dhufo kan ku dhufo waxa lagu dhuftay taan 45 hoose halkaana 5 ku dhufo waa 5 sentimitir si xa u heshid baan ku dhinac walba waxa say qaybsataa taan 45 xagana waxa u qaybsataa taan 45 sidaa daraaddeed taan 45 waa isla baxeen 5 loo qaybiyo taan 45 booska taan 45 waxa ku bedelan kartaa hal 5 loo qaybiyo halna waxa inoo soo baxay 5ta aan sii socono su'aalaheena saddexaad aynu isna maanta qaadanayno waxay noo noqonayaa aynu maanta wadanayno inoo yahay maxaa la idin siiyey saddexagalka KLM xagashiisana waxaa layna siiyey waa 60 halkana waxaa layna siiyey cos 60 wuxuu ku leeyahay half times kaxdeena ku haysta dhinacyadana waxaa lagu siiyey halkan waxaa lagu siiyey 4 sentimitir halkana waa laynoo diray shakaalkaas marka waxaa layna raadi dhinaca km na waa dhinaca shakaalka inuu ku dheero kasoo horjeeda waxaan leenahay maadaama cos adeegsanayno oo cos qiimaheeda layna siiyo cos waxaa lagu helaa ama xagasha cos ama 60 u qadadaad waxaa lagu helaa horjeede waa daris baan ka wadaa daris loo qaybiyey horjeede loo qaybiyey shakaal sorry loo qaybiyey shakaal dariskii waxaynu haysanaa cos 60 ama cos 60 waxaynu leeyahay dariskii waxaynu haysanaa waxaynu haysanaa 4 sentimitir shakaalkina waa dhinaca laynoo diray ama KM-ka inoo leeyahay dartid shakaal qaado sha usoo gaabso ilaa dhinacaas laynoo diray waxa uu soo gaabsataa KM sarabtide KM hada aragtid ilaa dhinacaas laynoo diray dhinacaas wuxuu yahay KM saynu helo waxaan leenahay isku wadaar isugu dhufo waxaan leeyahay KM oo lagu dhuftay KM oo lagu dhuftay cos sorry cos 60 ilaa kaasana ka dhufo hoosiyahana ka dhufo wuxuu soo baxayaa 4 sentimitir halka marka masaynu KM helno dhinacna waxa soo qaybisaa cos dhinacna waxa qaybisaa cos 60 dhinacna waxa qaybisaa cos 60 cos 60 iyo cos 60 waa isla baxayaan in la soo qaybiyo halka waxa ku soo baxaya KM halka waxaan wada 4 sentimitir halka haddaynu nimaano cos 60 maxay noo leekaa half marka waxaan leenahay loo qaybiyey half tan waxay u dhigantaa halfka loo qaybinayo cos KM waxay noo leegtahay waa 4 sentimitir oo loo qaybiyey half sana waa loo qortaa si fiican aanu qoro halka la yimaado waxaan leeyahay KM waxay noo leekaanaysaa si fiican la soco 4 sentimitir loo sii qaybiyey kan macnaheedu waa qaybteena caadiga inoo ahayd oo loo qaybiyey half KM waxay noo leekaanaysaa 4 sentimitir ku dhufasho qaybta waxaanu ku bedeli jirnay ku dhufasho labadan nambarna waynu kala bedeli jirnay waxay noo noqonayaa 2 loo qaybiyey hal sidaa darteed KM waxay noo leekaanaysaa 4 lagu dhuftay 2 inoo leeg 8 sentimitir loo qaybiyey halna waxba kama bedelay sidaa darteed waxay noo noqonayaa 8 mitir sidaa darteed dhinacaas wuxuu noo soo baxay 8 sentimitir baynu haysanaa
intaas inuu ku koobayaa layliska inuu ku xigo wuxuu noqonayaa maanta layligeena adigoo tixraacay saddex xagalkan lagu siiyey saddex xagalkan magaciisu yahay xaya raadi dhinaca koosta uu leeyahay koosna qiimaheedu inoo leeyahay 60 sentimitir su'aasha labaadna waxaan saddex xagal hoose ABC soo saar dhinaca AC inoo leeyahay sin centedina inoo leeyahay half inuu hore u soo baranay intaas maanta casharkeenu inuu ku kooban yahay aad ba u mahadsantihiin insha Allah khayr baa idin rajaynaya boqolkiiba